maanta waxaanu joognaa tartankii Telesom Group u dhaxeeyay tartankan oo ah mid sanadla ah waana sanadkii saddexaad ee tartankan la qabto oo xiriira tartankani wuxuu u dhaxeeyaa shirkadaha Telesom Group oo ka kooban Dar es Salaam Bank, Taj, Saad, qaybta leedhka ee Tag, qaybta dayactirka baabuurta ee Maat, qaybta dhismaha ee real estate-ka ee la yiraahdo Kaabsan, qaybta kale ee Telesom waxa kale oo harsan iyaduna oo shirkadeena weyn kale Somgas 8 kooxood ayuu tartankan u dhaxeeyaa tartankani waxa fikradiisa iska lahaa walaalkeen Cabdirasaaq Shabeel oo imika xaalad caafimaad u jooga dalka Hindiya oo Ilaahay ugu rajeynaa isagoo caafimaad qaba oo taama inuu nagu soo noqdo tartankan waa mid ay shirkadda Telesom ay ku dhiirigeliso shaqaale weynaheeda kala duwan si ay isu dhex galaan oo ay isu bartaan waxa runtii farxadaya inaan ka soo qayb galo tartankan qaybaha kala duwan ee Telesom oo maanta ka furmaya garoonka Future ee magaalada Hargeysa waxay runtii waxa jooga qaybihii kala duwanaa ee ciyaartoyga ee shirkadda Telesom iyo qaybaheeda kale waxaan runtii aad ugu mahadnaqayaa cid kasta soo qaban qaabisay fikirka tartankan waxa lahaa Cabdirasaaq Shabeel saaxiibkay oo hadda xaalad caafimaad u jooga wadanka India ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ilaahay caafimaad taama isagana soo siiyo tartankan waxaan rajeynayaa inuu noqdo tartan macnihii ujeedada laga leeyay in shaqaalaha Telesom isbartaan isdhex galaan oo ujeedadu inta tahay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta farxad weyn bay inoo tahay dhamaanteenba waxaan halkan u joognaa tartanka Telesom Group oo runtii aan ugu magac darnay walaalkeen Cabdirasaaq Shabeel oo caafimaad ilaahay uga rajeynayno runtii tartankan waxa uu dhiiri gelinayaa shaqaaleynaha Telesom Group waana tusaale fiican oo runtii u ah guud ahaan shaqaaleynaha Somaliland gaar ahaan aan leenahay shirkadaha kalena inay ku daydaan tartankan oo kale ay u qabtaan shaqaalooda xilliyada ay shaqada fasaxa ka yihiin runtii muhiimad badan buu leeyahay xayada jidhisku ama jimicsigu waxa uu yareeyaa cudurrada sidoo kalena waxa uu dardargeliyaa caafimaadka qaranka iyo ummadaba aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloon ilaahay uga rajeynayaa walaalkay Cabdirasaaq Shabeel oo Hindiya jooga xaalad caafimaadna u jooga in ilaahay caafimaad sareecana siiyo wuxuu ahaa runtii qof aad iyo aad ugu qiimo badan bulshada reer Somaliland gaar ahaan Telesom Group annaguna saaxiib gaar ah ayaanu hayn kubaddana waan wada ciyaari jirnay runtii aad iyo aad baan ugu duceynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan farxad noo ah runtii inaan kulankan oo kala qabno sanad walba oo loo qabto shaqaaleynaha shirkadda Telesom uu noqdona wax caado u ah oo runtii sanad walba la qabto oo ku faraxsanahay sida la sheegayna waxa ku magacaaban sanadkan oo lagu xusayaa ilaahayna looga baryayaa inuu caafimaad taama siiyo haddaba isagoo soo caafimaadaya walaalkeen Cabdirasaaq Shabeel oo ah runtii markaad garoonkan oo kala timaado ama tartankan aad joogto xusuusta kaliya ee qof walo shirkadda Telesom kamid ah iyo caasimadaba dadka ma taqaanaad ku nool ay yaqaanaan inuu hawshan soo qaban jiray marka waa u ducaynaynaa insha Allah hawshan saasay noogu balaamaysaa daawadayaasha iyo ciyaartoyga waxaan ku dardaaraynaa insha Allah bilow wanaagsan waxaan ka rajeynaynaa dhamaad wanaagsan ilaahay bismillaah alxamdulillaah waxaan mahadnaq weyn u soo jeedinayaa shirkadda Telesom oo qaban qaabisay koobkan Shabeel Cup waana doorkii saddexaad waxaan mahadnaq weyn iyo abaal ugu haynaa dhalinyartay bilowday oo uu ka koow yahay ninka saaxiibka Cabdirasaaq Cabdilaahi Cali Shabeel oo imika nin xanuunsanaya oo jooga Hindiya duca weynaynu halkan u maranayno ilaahay caafiyo isagoo socdana uu inoo keeno waxa kale oo hambalyo weyn siinayna dhalinyarta qaban qaabisay iyo dhalinyarta ciyaaraysa dhalinyarta qaban qaabisay oo ka mid yihiin Yuusuf Boobe iyo Saleebaan iyo dhalinyar badan oo aad iyo aad mahadnaq ugu soo jeedinayna halkan waxa kale oo aan u mahadnaqnaa shirkadda Telesom oo aanu leenahay mar walba saad shaqaalahaaga u dhiiri gelinayso abaal weyn baan kuugu haynaa waxa kale oo dardaaran siinaya dhalinyarta ciyaaraysa oo Telesom Group aanu leenahay si u ciyaara sharaf leh oo ka muuqato karaamo oo ka muuqato tixgelinta shirkaddu idinkoo isku arkaya shaqaale aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa
بسم الله الرحمن الرحيم haddaanu nahay maamulka garoonka waxaanu soo dhaweynaynaa dhammaan shaqaalaha shirkadda Telesom iyo dhalinyarteeda haddaan anigoo ku hadlaya magaca garoonka Future Stadium waxa aad iyo aad noogu farxada oon aad u hambalyeynaa soo dhaweynaa dhammaan tartankan 8 kooxooda ee ka furmaya garoonweynaha Stadium Future Stadium hambaliyo agaasimayaasha shaqaalaha Telesom aad baan u salaamay bismillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam waxa maanta halkan aynu sharaf inoo ah firitaanka wareegga Telesom Cup oo ah mid sanadle ah wareegaas oo ay ka soo qayb galayaan ambaan halkan lagu qabanayo 8 kooxood oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee shirkadda Telesom waa mid ay shirkaddu ugu dan leedahay isdhexgalka iyo dhisidda moralka marka laga yimaado shaqada ay company-ga u hayaan hore waxay nagu naqaanay shirkadda Telesom inay tahay horyaalka amba hoggaanka isgaarsiinta dalka halkan waxaanu sheegaynaa inay meel walba Telesom tahay hormoodka bulshada waxaanu aan leeyahay waa mid aynu doonayno inuu ka muuqdo anshax iyo dhammaan dhaqankii lagu yaqaanay shirkadda Telesom noqdana mid ay ka dhashaan guulo oo dalkii dadkuba ay ka faa'iideysan doonaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciyaartu saasayno fadhiya inuu hadhu talogaasmi nagu furi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim ugu horreyn ilaahay baynu mahadnaqaynaa maanta waxaan ku sugannahay garoonka Future Stadium oo ay ka qabatay shirkadda Telesom koob ay ugu talagashay inay wada ciyaaraan shaqaalaheeda kala duwan runtii aad baan ugu hambalyeynaya shirkadda Telesom inay u garteen shaqaalahooda inay u qabtaan koob qiimo badan oo runtii shaqaaluhu isku baranayaan ma aan mar walba shaqo lagu jiro laakiin mararka qaar waan jimicsi iyo isdhexgal runtii laga qayb qaato runtii aad baan ugu bogaadinayaa shirkadda Telesom sida caawada ay hore qaban jirtay runtii sida ay shirkaddu iyo maamulku noo sheegay oo markii saddexaad ay qabteen waxaan u rajeynayaa insha Allah inay marar dambe qaban doonaan shirkadaha kala wadanka insha Allah waxaan ku boorinayaa inay sidoo kale marka ay daawadaan ayaguna shaqaalooda u dhiirigeliyaan iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa wax qabadka fiican ee runtii ay dhalinyarada gelinayaan da'yarta iyo shaqaalooda sida ay dhiirigelinta u siinayaan waxaan halkan jecelahay inuu duceeyo Cabdishabeel oo runtii ka mid ah shaqaalaha Telesom oo ah ninkii abaabulay ama keenay fikirkan inay ciyaaraan koobkan shaqaalaha Telesom oo runtii xaalad caafimaad u joogeynayaan insha Allah isagana wax u barinay ilaahay caafimaad siiyo aad iyo aad u mahadsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh